عقلك وناكسن هنا درنسيو إلهي سبحانه وتعالى إثيوبيا كينيا الدون كودن سوريا أفغانستان meel kastoo dhibaato ka jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala nabad ha ka dhigo dhibaatada Itoobiya ka dhici doonta ama lala maagan yahay dadka qaarkoodna ay ku faraxsan yihiin waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka badbaadiyo ilaahay amni iyo amaan ha siiyo amni iyo amaan hadday helaan annaguna waa helaynaa Soomaaliya marka hore annagu wax isku falno oo aanu wax istarno markaas ayaanu mataqaana wax ka faa'iideynaa dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay arrintan ka dhigaan arrin khaldan ay ku farxaan ay propaganda ka dhigaan ay wax ka dhigaan laakiin waxaanu leenahay walaalayaal nabad baa naas la nuuga leh ama Soomaali ha ahaato ama Oromo ha ahaato ama Jabuutiyaan ha ahaato weligeeni allaheen wanaaga iyo waxaanu taageeraynaa nabadda ayaanu taageeraynaa qofkana mataqaana fikirkiisa xaq ayuu leeyahay inuu dhiibto aniga waxay ila tahay in nabadda la taageero dan ayaa noogu jirta wixii intaa ka dambeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu kusoo khatimayaa duca ayaan kusoo khatimayaa Itoobiya oo u duceynaynaa waxaan leenahay ilaahay dhibaatada ha ka qaado ilaahay muslimiinta ku nool dhibaatada ha ka qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala amni iyo amaan ha siiyo sidoo kale Soomaaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala amni iyo amaan ha siiyo waxaan leenahay walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkiina ha galo aad iyo aad ay u mahadsantihiin inta iga soo horjeeday fikirkayga khilaafsan waxaan leeyahay fikirkiinana waa soo dhaweynayaa in hadal xun la yiraahdo ma ahan waxa walaalo lagu yahay waa ina meel wax iska tusaa waa in fikirka la istusaa Itoobiya waxyaalaha aan ka yaabo waxa kamid ah reer walba hadda calan u taagan Itoobiya ayaa mataqaana ka soo shidaal qaataan Itoobiya markay reebo la jirto wala taageersan yahay yes good Itoobiya la leeyahay ma fahanti Itoobiya waxa weeye